faa'iidooyinka ay biyaha u leeyihiin jirkeena. Ma ogtahay biyaha aan cabno maalin waliba in ay ka mid yihiin nafaqada jirkeena uu u baahan yahay sida maalinlaha ah. Dhammaan falgalada ka dhex dhaca jirkeena waxay u baahan yihiin biyo, tusaale dheefshiidka oo kale. Biyuhu waxa ay ka kooban yihiin kiimiko ahaan 1 hydrogen iyo 2 oxygen, waxaana loo soo gaabiyaa HO2. Biyuhu waxaa lagula taliyaa qofka inuu cabo maalinkii 8 galaas iyo in ka badan. Halkan waxaan kugu soo gudbinaynaa faa'iidooyinka ay biyaha u leeyihiin jirkeena. Biyaha aan cabno maalin waliba waxa ay naga caawiyaan isku dheelitirka dheecaanada jirka. Jirkeena 60% waxa uu ka kooban yahay biyo. Dheecaanada jirka shaqooyinka ay u qabtaan waxaa ka mid ah dheefshiidka, nuugidda cunada, wareegga dhiigga iyo sameynta candhuufta. Sidoo kale dheecaanada jirku waxa ay ka qayb qaataan joogteynta heerkulka jirka aadanaha. Biyuhu waxa ay murqaha siiyaan tamar, waxayna ka hortagaan daalka badan ee la dareemo xilliga jimicsiga. Waxaa lagula taliyaa qof waliba inuu cabo biyo marka uu jimicsi sameynayo, sababtoo ah biyuhu waxay bedelaan booskii uu dhiigga ka soo baxay, murqahana waxay siiyaan tamar. Biyuhu waxay naga caawiyaan maqaarka inuu noqdo muuqaal ahaan mid aad u qurux badan. Qofka marka uu fuuqbaxo waxaad ku arkaysaa in maqaarkiisu yeeshay miin iyo sidoo kale qalayl maqaarka xaggiisa ah. Biyuhu waxay kor u qaadaan caafimaadka kilyaha. Kilyuhu jirkeena waxay u qabtaan hawlo badan sida sifeynta dhiigga, qashisaarka jirka qaabkaadi ahaan ah. Haddii ay cabistaadu yar tahayna waxaad halis ugu jirtaa kilyahaada inay ku samaysmaan dhagxaan. Biyuhu waxay horumariyaan shaqada mindhicirada waaweyn, waxayna ka hortagaan calool fadhiga. Waxaa wanaagsan mar waliba inaan badsano cabista biyaha. Haddii ay kugu adkaato cabitaanka biyaha, waxaan kugula talinaynaa inaad basato cunista khudaarta cagaaran, sidoo kale inaad basato miraha laga helo biyaha sida qaraha, babayga iyo wixii la midka ah. Mahadsanidin.